الحمد لله رب العالمين أحمده حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الذكر قبل الوضوء. waxaynu soo gaadhnay adkaarta weysada. weysadu waxay leedahay dikri ka horeeya iyo dikri ka dambeeya, mid lagu bilaabo iyo mid lagu dhammeeyo, sida acmaasha aynu soo qaadanay iyo kuwa inoo iman doona badankooduba ay yihiin, oo dikrina lagu galo dikrina looga baxo. waxaa axaadiista qaarkood ku soo arooray adkaar inta qofku weysada uu wado la xuso, wejiga marka la dhaqayo, gacmaha la dhaqayo, lugaha la dhaqayo iyo wax la midka ah. adkaartaasi adkaar ansaxday ma aha oo waa dicaaf, sida alimaamu nawowi raximahullah kitaabka adkaarka ah uu ku sheegay. nebiga waxaa ka ansaxay waa dikriga lagu bilaabo weysada iyo dikriga lagu gebagabeeyo weysada. bilowga markaa qofku markuu weysada bilaabayo wuxuu ku bilaabayaa bismi illaah. dikriga bilowgu waa kaa weeye, bismi illaahi ayuu ku bilaabayaa, magaca allaan ku bilaabayaa buu leeyahay. ayib, basmalada markaa waa soo sharaxnay iyo macnaha ay ku fadhido adkaarta. abu hureyra radi allahu tacaala canhu nabiga ka warinaya inuu nabigu sala allahu calayhi wasalam yidhi: laa salaata liman laa wuduu'a lah. weyse u ansaxaysaa ma jiro, salaad u ansaxaysaa ma jiro qof aan weyse qaadan. walaa wuduu'a liman lam yadkur isma allahi tacaala calayh. weyso u dhammaystirmaysaana ma jirto qof aan bisinka qabsan. marka salaada weyse la-aan ma ansaxdo, weysaduna bisin la-aan ma dhammaystiranto. bisinka in la qabsado qofku markuu weyse qaadanayo waa sunne, waajib ma ahan sida xooga badan. haddii uu ka tago qofku weysadiisii way u ansaxaysaa. sidaa awgeeda baynu xadiiska ugu xambaarnay dhammaystirnaan. waxa la diidan yahay ama la nafyinayo waa weysada dhammayska tiran hadduu qofku bisinka ka tago. bisinka hadduu ka tago qofku uu kusoo xasuusto weysada isagoo oo dhex galay, meesha uu marayuu ka qabanaya oo bisinka uu ka odhanaya. haddii uu lugaha gaadho, weysadiina inuusan bisinka u qabsan uu xasuusto, meeshaasuu bisinka ka qabsanaya. bisinka weysada loo qabsadaa waa bismillaah. bisin dhammaystiran maaha, bismi illaahi araxmaani araxiim. haddii la yidhaahdo waxba kuma jabna, laakiin sunnuhu waa in lagu kaaftoomo bismi illaah oo aan lagu darinin araxmaani araxiim. bisinka wuxuu qabsanayaa qofku marka uu weysada bilaabayo, oo wuxuu israacinayaa xubnaha dhaqitaankooda, gacmaha marka uu bilaabayo dhaqitaankooda, iyo bisinka iyo niyadii meesha dhacaysay ee gacmaha sunnaha ee la dhaqayo loo niyeysanayay. saddexdaa arrin buu israacinayaa. hal mar buu la wada imanayaa hadduu awoodo. laakiin weysada niyadeeda waajibka ahi waxaa lala yimaadaa marka uu qofku wejiga dhaqayo. niyada weysadeeda waajibka ahi marka qofku wejiga dhaqayo ayaa laga rabaa inay joogto, ama markaa mid cusub ha la yimaado, ama midii hore ha soo cusboonaysiiyo, ama tii horeba ha sii xasuusnaado. macnaha meesha ku jira waxa weeye qofku haddii uu niyeysto isagoo gacmaha dhaqanaya, kadibna ay maskaxdiisii meel kale aado, oo sidaa ku luqluqdo oo ku sandaarsado oo ku weji dhaqdo oo sidaa kusii socdo, weysadiisii ma ansaxayso. sababtu waxa weeye
weysada bilowgeedu waa wejiga weysada waajibka ah bilowgeedu waa wejiga weey weysada xubnaha la dhaqo waxay isugu jiraan xubno waajib ah iyo xubno sunna ah wejiga waxa ka horeeya waa xubno sunna ah weey in loo cadaydo weysada iyo in bisinka la qabsado iyo in gacmaha la dhaqo iyo in la luqluqdo iyo in la sandaarsado shanta arrin ee ka horeeya wejiga dhaqitaankiisuba waa sunne sida awgeeda qofku hadduu ka tago weysadiisii ma burayso ee way ansaxaysaa hadduu wejigaba ka bilaabo toos uga bilaabo haddaba cibaadada niyadeeda waxaa lala xidhiidhiyaa bilowgeeda bilowga dhabta ahina waa bilowga waajibka ah weeye meesha aad shayga waajibka ka bilaabayso baa cibaadada bilowgeeda dhabta ah meeshaasaad markaa niyada ula imanaysaa wixii hore tegay waa tageen laakiin waxaad hadda og tahay ama aad ogaatay inaad ku dhaqantaa lagaa rabaa marka aad wejiga dhaqayso weysadaadu waa inay niyadaadu waa inay joogto xilligaa inaad weysaysanayso ood weyse qaadanayso waa inay niyadaadu ku joogto markaa waadan meel kale u shaxteginin ayib idan bismi illaahi baa lagu bilaabaya adkaartaa maxaa lagu dhammaynaya ama lagu gabagabaynaya الذكر بعد الفراغ من الوضوء ويسد قفك مركا ودميو ذكرك واخرنيو وحوليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهي من قرية حق الله لو عابدو إنو سنشيرين ألا مهان وحده كله لا شريك له من عبادة لو ذاتيانا إنا نشيرين بان قرية وأشهد وحان قرية أن محمدا عبده ورسوله نبي محمد أدون كي سينو يهي رسول كي سينو يهي قرار كاسد مركز سمينيسا إيمان كي باقوغو عصبونانا يدنا قفكو مركو ويساقاتو وحا او دنا اوغا اغيهي قفكو مركو او سو واي مركو او قفكو سو غالو دينتا إسلامك وحا سنة ee uu rabo inuu iimaan cusub la yimaado inuu iimaanka marka uu la yimaado oo niyeysto oo soo gala diinta qubaysto ayaa sunna ah markuu qofku weyse qaadanaya marka cusboonaysiintii iimaanka ay u dhiranta sida awgeeda uu shahaadada qabsanaya ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu la shariika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shahaadada qabsanaya markhaatibaad kacaysa markaa markhaatina waxaad ka kacaysaa wax markhaati laga kaco waxa uu fiican markhaati laga kaco waa inaad la qiro oo looga markhaati kaco alle xaq lagu caabudo oo aan allah ahayn inaanu jirinin keligii cibaadadayna sancidi la mudanin nabi maxamedna rasuulkiisa uu yahay sallallahu alayhi wasallam inay mudan tahayna waxaa ku tusinaya ilaahay waxa kaliya ka markhaati kacay quraanka waa intaa weey wuxuu ka markhaati kacay شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إن المركة كوحدة إلهي كلمديسة يا ربي نمديسة كم مرخاتك عيات كبيرته وحيقوتها الشرف يا كرامة عقبة بن عامر أيا ورينيا نبي صلى الله عليه وسلم إنه سوق على حديث هو على سوق أو وعدين يا الصحابة رضوان الله عليهم markaasaa wacdigii nebiga waxaa ka mid ahaa maa min muslimin ma jiro muslim yatawada'u weyse qaadanaya oo fa yuxsinu wuduu'ahu weysadiisa wanaajinaya uma yaquumu oo kadib istaagaya fa yusallii rakcatayni laba rakcadood tukanaya muqbilun calayhimaa biqalbihi qalbigiisana ilaahay subxaanahu watacaala dhinaciisa ula jeeda oo ilaahay ku qaabilaya dhinaciisa ووجهه إيا وجهه سنة إلهي إن عيسى قابلية إلا وجبت له الجنة مسلم كاسي هدوشره جنة واجبيسة أيو يري النبي صلى الله عليه وسلم مركاسان وحان إليبو يري هذا الكامر كان مقلي وهذا كان وعانا ما أجود هذا وناكسنا بانيري مركاسان قف هرفا ليوحو يريبو يري تيكه الرئيسي باكسي في عني وافيري markaasuu waa cumar buu yiri waan arkayo waa cumar buu ahaa markaasuu wuxuu igu yiri inaad hadda timid baan arkay nabigu waxa ka horeeyay oo uu yiri ma min ahadin yatawadda ma jiro ma minkum min ahadin yatawadda ma jiro qof idin kamid ah
وويسة قادنيا وفيسبغ أما فيبلغ ويسة كحير دارانيا الوضوء ثم يقول أراني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية سيدة الباب جنة الله فرح يدخل من أيها شاء بدو دونه مركا قليل أجل كاسا مركا كتشي رقفك إنه أذكارتان أخرسته حديث كهر مركا محوي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجبت له الجنة جنة واجبتين كان ضب محوك قاعد شيب سيه وعمرنا اللي رضي الله تعالى عنه تيهرا كسي في عينيه سيدة الباب جنة ضب والله فريا ما ها جنة وكلي إنه واجبيسه مركا أذكارتان أخرسته طيب كور مركا قفك ويسقاته وذكري كان حصه ووليبا مالكي شن جير ويسقاته ويسد عسبونيسيه إمسا جير با markuu adkaarta uu yiraahdo marka laga yimaado ajarka lagu qorayo xubnaha uu dhaqayo ku cibaadaysanayo adkaartaas oo kaliya markuu akhriyo imisa jeer ba albaabada jannada loo furayo imisa jeer ba janna u waajibaysa waxa ku jira marka fadli iyo cibaado aad u weyn tayib cibaadada marka fadligeeda garanayso waxa uu la imanaysaa si waxa la yiraahdo ku talagal leh waad ilaahay ugu dhawaanayso waan eray aad iska oranayso kaliya ahayna macna qalbigaaga ku dhacsan أي تهي مسكوميت باقف أشهد أن لا إله إلا الله أخرنا يذكر جاس وقلبي سنة أي كشر رحان تهي وواسع أوية هي جندي باكوة جبت مركب هذا آخر السي حل كان هذا آخرين سيدي الباب جند على الغفرة معناها فهم سن إيوه قف ونقرن إياه إن أشهد أن لا إله إلا الله لا إله طبعا أشرك مسكوميت بنقون إياه لكن سامين أي أذكرتني كجبت وقلبي سيسكوميت ونقون معي معناها سامركا مهم إنك إسجنوا فهمتوا طيب ساسو مركا قف قرانا يا مركا وكبحه ويسدد وحكلا قرانا يا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني إله إغلق من التوابين كوة توبت كان كبضا واجعلني إغلق من المتطهرين كوة إصطاهرية كوة توبت كان كبضا هي كوة إصطاهرية إله إغلق طيب كوة توبت كان كبضا maxaa meeshan toobada ka quseeya qofkii uu weyse qaatay weysadii markuu dhameeyana waxa la yiri waxaad ku ducaysataa ilaahow kuwa toobadkeenka badan iga mid dhig macnaha ku jira waxa weeye weysadu waa dambi dhaaf xubin walba aad dhaqayso oo xubnaha weysada ka mid ah ilaahay sayi'aadka iyo dunuubta yaryar ee aad shaqaysatay wax badan oo ka mid ah kugu dhaafaya ويسدو مركا وحوي دم بداف وفعل أنا أفكا كسمينين توبة أنا أفكا ككينين وعبادة وحبنها أتكلا إيمان يسوع وذنب جاء إلهي كل عافية وحمناسب مركا فعل كي أتكون مدنيسي إن دم جاء لقول رافع فالكي أتكون مدنيسي إن أتقدرته أري أما أراه أدلاه توبة كوي دي سنيسو أما كوا توبة كأنه إنه إلهي كامل لجو ولي توبة بدنياش إلهي مكامل لجو أرجعنا إلى راعي مكان مناسبة ما دام مناسبة الدم بدافكو أي ماشى تعلق تسمى كان لوكان اللهم اجعلني من التوابين أو معناها سألقى فهم كريا إن لوكان إله قوة توبة كان كبداني قال وجعلني من المتطهرين قوة إصطاهرية إله قال لي طيب وحورنا يا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك عيب أديك كهفا الله اللهم الله يوم هذا عيب كهفا وبحمدك مهدا أيام كل هي النبي عليه الصلاة والسلام مدينة صبرت سما واي سبحانك أديك عيب كهفا ربي يوم اللهم الله يوم وبحمدك mahadaada anigoo ku dheehan baad rabbiyow ceeb ka hufantahay ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha alle xaq lagu caabudaa inaanu jirinin ilaa anta adiga mooyaane astakfiruka rabbiyow waa ku dembi dhaaf weydiisanaya wa atuubu ilayka waana kuu toobadkeenaya adkaartaasuu markaa akhrisanaya dikrigan yaa xasuustaa soo marnay ama ma ka soo hadalna meesha uu munaasibka ku yahay in loo akhristo yaa taas waa meel haye maxaa ka mid ah marka la kacayo jamiil qofku markuu kacayo adkaartii uu akhrisanayo weeye
munaasabada meesha ay la leedahay marka waa maxay qofku markuu weyse qaadanayo wuu fadhiyaa Soomaa kadibna wuu kacaya adkaarta kicitaanka marka way u leeyimaado munaasabadu marka waa sida weey طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طيب وصو شرحنا مرة كان الذكر عند الخروج من المنزل مركز لقب حي قرية أذكرتها لا أخرسته أيو حل كان كغور مية قفكو أذكرته وكقبحه قرية بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله isna waa ka bismillaahi magaca Allah ku bilaabaya bixitaanka aan guriga ka baxayo tawakkaltu ala Allah ilaahi baan u tala saartay arrinkayga wala hawla halad iyo wala quwwata awood illa billahi ma jirto illa billahi alla inay ku jirto ma ahaan tayib qofku markuu guriga ka baxayo gurigiisa marka uu ka baxayo adkaarta uu kaga baxayo iyo adkaarta uu ku soo gelayo ayuu halkan ka warramay أذكرت كواد مركا كقبحيا وهم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحانس بن مالك رضي الله تعالى عنه نبي كوري صلى الله عليه وسلم قفك هدو قري سكبحه وأذكرت أو أخرسته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحلو يرهدا هديت ووقيت وكوفيت أما هديت وكوفيت ووقيت ولا هنونيي مركو سيدا يرهدو ووقيت ولو إلاليي وكفيت وانا لغو كافيي مركا وانا لغو هنونيي هنون دين تادا وينا تكون واغضو أذكارتنا هي هنون رزقي كاغا هي ميل وعن آت كاغا بقى مورج كاغا مخرج كاغا في عن ماشا في عن أبا حيصو إلهي وكو هنونيني وحلقا إلالينا يا شيطان يلبكيس ووقيت ولغا كافينيا وكفيت وانا لغو كافين معناه يشاسا مركا لو يرهدا وتنحى له الشياطين اما فتتنحى له الشياطين كدبنا الشيطان كي كسغيي البابك الربا انو سوق اسي قلبيو البلاك اخريو با وبنينيا وددي را انو راعو مركا وكهريا قف مركا وحو نقونيا كإلاشن شيطانكي وانا معناها اذكرت انو كشيغني inay yihiin xisnul muslim in adkaartu tahay dhufayska qofka muslimka ah qofka meel walba adkaartiisa ku dadaalaya inuu la yimaado shaydaanku xaq uga imanaya ma soo maraya shaydaanna dardari maayo shaydaanna waswaasin maayo ilamka ilaahay طيب فيقول له شيطان آخر markaasa shayaadiintii baa iswaraysanaya dhexdooda niman jabay oo jab isku waraysanaya noqonayaano markaasa mid wuxuu leeyahay kuwa kale ku leeyahay ka warrama qof hudiya wa kufiya wa wuqiya intaasoo dhan loo sameeyey la hanuuniyey oo la ilaaliyey oo la kaafiyey bimacnaa sideebaad u waswaasin karaysaan ama sideebaad u waxyeelayn karaysaan waa maya wey ma awoodaan ayib adkaartaasaad akhrinaysaa waxaad kaloo leedahay اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي طيب اللهم الله يوم إني أعوذ بك وحن كان ينقليا أن أضل إن أنلمه أو أضل إلا إلميه أو أزل إن سنبري رحده أو أزل إلا إسنبري رحيه أو أظلم إن أنظلميه أو أظلم إن لا إظلميه أو أجهل إن أنقرد الروضه أو يجهل علي أما إلا إلو قرد الروضه طيب قفكم مركب قرقيسو تشوغو gurigiisa ehelkiisa uunbuu la joogaa bannaankana ummad buu ugu baxayaa bannaanka wuxuu ugu baxayaa shayaatiin wuxuu kale ugu baxayaa insaan bani aadamkii oo dhan buu ugu baxayaa shaqooyin baa dhex maraya sheekooyin baa dhex maraya dadka u baxayo iyo shaydaanka mid walbaba dikri gaara loo sameeyey shaydaankii midkaa horaa loo sameeyey waxaa la yidhi xijaabkii shaydaanka weeyeysow maxaa hadhay ummaddii aad dhex gelaysay inaadan adiguna dhib u geysan iyaguna aysan dhib kaa soo gaadhin dikrigii aad u akhrinaysay aad ku xirsi xidhanaysay ayaa iyadana lagugu daray markaasuu waxaa lagu yidhi waxaad ku ducaysataa allahuma innii acuudu bika an adilla aw udal in aan lumo ama lay lumiyo nebigu sal slam wuxuu yidhi laa darara walaa diraar qofka in dhib isagu uu geysto iyo in isaga dhib loo geysto midna ma bannaana
dhibkaasi ha ahaado dhib afkiisa ka imanaya ama adinkiisa ka imanaya ma banaana ayib marka inaan wax lumiyo ama lay lumiyo inaan simbiriirixiyo ama aan cid simbiriirixiyo ayib yani inaan toore noqonaysaa qof dembi weyn ku tuuro oo diintiisii ka lumiyo ama aniga diinteedii layga lumiyo ta dambena waa dunuubtii yaryarayd weeye iyo simbiriirixiin aw adlima aw udlama in la idulmiyo ama aan wax dulmiyo iyo inaan gardaroodo iyo in la igu gardaroodo nabiguna sal allahu calayhi wasalam umu salama waxay ka warinaysaa nebigu guriga weligii kamaanu bixinin dabcan intaa iyadu gurigeeda uu joogi jiray ama uu ka bixi jiray ilaa rafaca tarfahu ila asamaa cirka u eegi jiray nebigu sal slam markuu guriga ka baxayo markaasuu adkaartan akhrin jiray allahuma innii acuudu bika an adilla walla ila akhiri ayib xillimaa marka adkaarta la akhrinaya adkaarta waxaad akhrinaysaa markaad albaabka iska furto oo aad lugta qaadayso marka luqaadka aad lugtaad kaga baxayso guriga iyo waxaad israacinaysaa adkaartaada haddii aad marka aad ganjeelka furato oo aad bixi rabto akhrisana dhib ma laha markaad bannaanka istaagto haddaad akhrisana dhib ma laha laakiin intaadan bannaanka u wada bixin oo jidhkaagu uusan bannaanka wada gaadhin inaad adkaarta sii bilowdo ayaa lagaa doonaya ayaa fiican saasaa fiican ayib dikriga ku xiga qofku marka uu guriga gelayo adkaarta uu akhrisanayo الذكر عند دخول المنزل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله طيب حليه اللهم إني أسألك خير المولج إله وحن كويدي سنية مال لقلو وناقيد وخير المخرج مال لوبحو wanaaggeedna waa ku weydiisanaya bismi illaahi magaca alle annagoo ku dheehan baanu walajnaa galnay annaga oo wadanna magacii ilaahay oo ku dheehan baanu gallay wa bismi illaahi magaca alle baanuna kharajnaa ku baxnay wa cala allaahi ilaahay rabbinaa rabbigaya baanu tawakalnaa tala saarannay intaa marka uu sameeyo markaa adkaartu halkaasay ku joogtaa uma liyusallim calaa ahlihi intaasu waa xadiiska intii kale kadibna wuxuu salaamayaa ehelkiisii salaantii islaamku markaa ku bilaabaya oo ku salaamaya ayib wuxuu akrinaya markaa bismi illaahi allahuma innii as'aluka khayra almawliji wa khayra almakhraj bismi illaahi walajna bismi illaahi kharajna wa calaa rabbina tawakalna khayra almawlij meel la galo meesha ugu wanaagsan baan rabbiga ku weydiisanaya meel loo baxo ama laga baxo meesha ugu wanaagsan baan rabbiga ku weydiisanaya magaca ilaahay baanu ku galnay magaca ilaahayna waa ku baxnay ilahayna waa tala saaray ayib ehelkana markaa qofku waa salaamaya oo salaanta ka tegi maayo nebigu sala allahu calayhi wasalam kaana yusallimu calaa ahlihi idaa jaa ayib qofku marka uu adkaarta guriga ku galo ilaahay subxaanahu caza wajalla damaanad dhinaciisa buu haystaa inuu ilaahay wixii dhib ah u ka leexiyo damaanad dhinaciisa ah sida xadiis ibnu xibbaan nabigu sal slam jaamic cabdillahi uu ka wariyey qofku hadduu gurigiisa galo iyo haddii uu jihaad u baxo in uu damaanad ilaahay dhinacii uu adkaarta akhriyo iyo hadduu jihaad u baxo oo uu adkaarta akhriyo ilaahay dhinaciisa inuu damaanad ka haysto wuxuu kaloo jaabir warinaya radi allahu tacaala canhu nabiga ka wariyey qofku hadduu gurigiisa galo oo marka uu guriga gelayo ilaahay xuso marka uu cuntada cunayana ilaahay xuso shayaadiinta waxay yidhaahdaan meelaad u hooyataanna ma lihidin oo ma haysataan waxaad cuntaanna ma haysataan haddii uu guriga galo oo uu adkaartii xusi waayo shayaadiintii waxay yidhaahdaan hooy baad hesheen gurigay markaas kusoo shubayaan haddii marka uu cunnada bilaabayo dikrigii uu xusi waayo ila waa ka agdhow yihiine markaasoo kale waxay odhanayaan hooyna waad hesheen cashadiina waad hesheen saasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam leeyay ayib marka markuu qofku guriga gelayo shaydaanka albaabka waxaad kaga celin karaysaa inuu soo galo ama kuu soo raaca guriga gudihiisa inaad adkaarta akhriso ayib cunadana waxaad kaga celin karaysaa hadduuba soo galaad soo ilowday inaad iyadana adkaartii ku xusto ayib dikriga ku xiga waa masaajidka marka la aadayo ducaau dhahaabi ila almasjid masjidka aaditaankiisa ducada lagu aado wuxuu akhrisanayaa qofku markuu masaajidka u socdo dikrigan allahuma ajcal fii qalbii nuura wa fii lisaanii nuura wa fii samcii nuura wa fii basarii nuura ila aakhiri alxadiid
qofku markuu guriga hadduu guriga ka baxayo markuu hore dikrigii uu guriga kaga baxayay buu akhrisanaya waynu hadda soo sheegnay kadibna tanuu ku daraya haddii uu suuqa markii hore joogay adkaartan uu masaajidka uu rabo inuu masaajidka aado dikriga masjidka unbuu markaa akhrinaya wuxuu leeyahay allahuma ajcal fii qalbii nuura ilaahu qalbigayga nuur yeel wa fii lisaanii nuura carabkaygana ilaahow nuur yeel wa fii samcii nuura maqalkaygana ilaahow nuur yeel ومن فوقي نورا كركي إله نوريا ومن تحتي نورا هوستيدا إله نوريا وعن يميني نورا مدكتيدا إله نوريا وعن شمالي نورا بدحديدا إله نوريا ومن أمامي نورا هرتيدا إله نوريا ومن خلفي نورا قداشيدا إله نوريا واجعل واحد يشاء في نفسي نفتيدا واحد يشاء نورا نور وأعظم لي واحد إيوي نيسا نورا نور واجعل في عصبي waxaad xididadayda ka yeeshaa dhexdooda nuuran nuur wa fii laxmi hilibkayga waxaad ka yeeshaa nuuran nuur wa fii dami dhiigaygana dhexdiisa waxaad ka yeeshaa nuuran nuur wa fii shacri timahaygana waxaad ka yeeshaa gudahooda nuuran nuur ka yeel wa fii bashari nuura basharkayga ama diirkayga ilaahu isagana waxaad ka yeeshaa nuur allahuma ajcal lii nuuran fii qabri allahuma allahayow اجعل لي وحدي يشاء نورا نور وحدي يشاء في قبري جيدا ونورا نور وحدي يشاء في عظامي لفهيدا وزدني وحدي كردسا نورا نور وزدني وحدي كردسا نورا نور وزدني وحدي كردسا نورا نور وهب لي نورا على نور 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 لقدري أما نور كسر ريا إله إيه به ساسا ما كنت عيسى ودعاء الأنوار دعاء الأنوار إلهي نور كايالو دينا والبا غدهاغا بنانكاغا جهوينكاغا ميشاد كبخايسو ميشاد u socoto qof nuur la socdo inaad noqoto saasad ku ducaysanaysaa طيب هاي ودعاء الذهاب الى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا إله قلبي يا نور يال قلبي نور ان حقك قرته إله ويال وان باطلك كغليخو ومعاصي حجابه وأن كنعه كفرك وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان قفك درجوينك وفي عن الله وقارسيه سبحانه وحكم إنه معاصي أنعه فاسق لماذا إنه أنعه قال لماذا إنه أنعه سيد أنعبيه إن نبر لقارسيه أما العايو أما حماك يلو قال وسو قالوا يعني حماها المادية إلا تابن كرايو سيدو نعب يهي سل أج أما سكة بضنبا إنه أنعه مع سيدة ومرتبة إيمانات أغفو الباب أسنقارين سببتنا هو محي مع سيدة يفسق يوحاس أورداني ووح نفتا لو أبوري جعيل كيدا مركا أبورك النفتو وحن واجع عشا سيدة أوجه لما بني آدم كبدن كود أي سيد البالين اللي دتك أي وجود هذا توكل أي وجود هذا نيا هدي واحد نفته أنا يشعرين بني آدم كبدن كود وكيم الله هاي لكن محب بني آدم كبدن كود قال كلجي فاسقين كلجي عصاة محا كلجي بني آدم كبدن كود سببت واحد أي قال لك نقول أيام أي قال نبذ كينيا أما واحد أي كعاسين يعني إلهي بواحد نفته اللي شعري سيئة إنه مركب قفكو قالوا naftiisa in uu warshadeeyo oo uu soo gaarsiiyo heer naftu wixii ay lagu abuuray inay jeceshahayba inay nacdo heerka markay soo gaadho waa darajaadka iimaanka ugu sarreeya weey sida awgeed uu ilaahay ugu manna sheeganaya saxaabada mu'miniinta wuxuu ugu manna sheeganaya ugu galad sheeganaya wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq idin nacbaysiiyay kaalmada fusuqa meesha dadka kale ay jecel yihiin oo sidii nafta aadamiga iyo bahiimiga ah bahaimta oo kale ay macaasidi ku daadanayaan aysan ku ibra qaadanaynin aayaadka ilaahay iyo wixii nabiyada laga soo diray qalbiga marka nuur ilaahay u yeelay carabka nuur yeelay marka xubnahan oo dhan iyo jihooyinka wixii xubna ah nuurka macnaha loogu ducaysanaya waxa weeye ilaahay wixii aad ugu tala gashay ee iimaan iyo wanaag ahaa mid aan ku sameeyo ilaahay iga dhig ila nuur هلا هو هذا وضتي ومعناه هذا ما هي تكون دعاء سنة سو حنا هاي هبل ونور أو ونور
meeshuu maraba nuur baa dhinaca ordaya sidaa ma aha nuurku waa wax macnawi ah meesha laga warramayo aakhirana ilaahay subxaanahu caza wajalla nuurka xisiga ah oo bani aadamka siinayo taasi waa mid aakhiro weeye laakiin adduunyada marka la joogo qof nuurkiisu uu dhinac socdo maaha dadka waxaa ugu nuur badnaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam haddana gurigu marka uu faynuuska la damiyo dee nebiga jirkiisa laguma ifsan jirinin guriga nebiga jirkiisa nuur guriga lagu ifsada muusan lahayn ilaahayna wuu awooday inuu siiyo waana laga yaabay inuu dadka qaarkood uu karaamo ahaan ilaahay u siiyo subxaana laakiinse nuurkan laga warramaya waa macnawi waana nuurka qofka dadka marka aad u fiirsato weliba qof iimaan le markaa tahay oo aad qofka wejigiisa u fiirsato aad leeda weliba qofkaas wejigiisa nuur baa ka baxaya qofkaana wejigiisu waa dansan yahay balaag waxbaa ka sii ah marka nuurku kaa macnawiga ah ee soo daahiraya ee qofka asaarintiisu wejigiisu furmaysa ee iimaanku ka muuqanaya xasilloonidu ka muuqanaysa ee kaawi xubnahaaga markaa inaad wixii ilaahay kuugu talagalay ku samayso waa nuur weeye jihooyinkan leeyahay ilaahu nuur iga siina waxa weeye ilaahu khayruun iga soo geli maxaad ugu ducaysan intoo dhan dee shaydaankii baad ka soo xirxidhaysaa shaydaanku muxuu yihi walaatiyannahum min bayni aydiihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين حقي حق أبو إيمانية مركا حرص وين بدك حرنا إنسان ما حد هذا إلا وحق النور جس وحق النور جس وجهوي كوليبا أنت الشيطان أوسن شيء وحق سرائي حق هوسي أنت لفت كذا إله نور يقول دار نور جسي مركا يوسن شربي يسوق لي لأن أنا شربي يوسن يسوق لي طيب اللهم اجعل في قلبي نورا نور قلبك الله يال وفي لساني عربك يغنى نورا نور يال وفي سمعي مقل كيغن نور يال وحما أنا كمقل وفي بصري بصر كيغن يارك يغن نورا نور يال وحما أنا كأرك ومن فوقي كر كيغن نورا نور يال وحما يسوق لي ومن تحتي نورا هستيد إله نور يال وعن يمين نورا ملكتيد إله نور يال وعن شمال نورا بلحيدنا إله نور يال ومن خلفي نور ومن أمامي نورا حرتيد إله نور يال ومن خلفي نورا قداشيدنا إله نور يال واجعل واحد يشاء الله في نفسي نفتيدا قدهيدا نورا نور يال اللهم الله يوم أعطيني واحد يسيسا نورا نور واجعل واحد يشاء في عصبي أعصابتي لنا نورا وأعصابت واحد إلى هذا مسكحدا حديدنا كسوق هذا أوامرته وفي لحم هلب كيغا إله نورا يال وفي دمي ليغا نورا الله نور يال وفي شعري تمهيغا نورا الله نور يال وفي بشري دير كجركيغا إله نورا نور يال اللهم اجعل لي نورا في قبري إله نور يال لحنيس ونورا قبل نور كيسو سوى حسي نور حسي ولكن قاب كان لو دريميو اين قف dadka bini aadamka jooga adduunyada aysan iyagu dareenkooda qabin ayaa nuurka qabrigu qofka mu'minka lagu siiya dulmada iyo mugdigana qofka gaalka ah ama caasiga lagu siiya ونورا في عظامي لفهي إله نوريا وزدني وحدي كردسا نورا وزدني وحدي كردسا نورا وهب لي وحديه ليس نورا على نور lagu daray ama nuur ka sareeya ilaahu iihibe sidaasaad ku ducaysanaysaa masaajidka markaad u socoto haddaad markaa dhammaanteed xifdin karayso waa alxamdulilah haddaad dhammaanteed xifdin kari weyso inta horeba xifdi allahuma ajcal fii qalbii nuura wafii lisaani nuura wajcalnii nuura wajcalnii nuura wixii aad wada qaban kari weydo lagama wada tago wax ka mida lala yimaadaa waadna wada xifdin karaysaa wax adag maaha qofka qur'aanka ama adkaarta ama ducooyinka soo arooray intuu doono da'diisu hal leekaatay yiraahdo ma xifdin karayo isaga isbeen fariimaya noloshiisa caadiga markaynu u fiirsano waayo qofku waxyaabo fara badan oo kale u xifdiya ama uu xifdisan yahay intaasoo gabay baad xifdisanta mobilka youtube-ka intaad ka dhegaysato gabayo baad gabayo dhaadheer oo adag oo luqad adag ku qoran baad xifdinaysaa markaasoo adigu isma been fariimaysid markaad tiraahdo qur'aankii walaqad yassarna alqur'aana lidikri la yidhi ee muyasarka ahaa ee ilaahay fududeeyey ما حفظين كره هذا تراهي هذا اسمه فريمية دعاء يا كاتن يريح اسكاب كوبا هذا تراهي ما حفظين كره هذا اسمه فريم معناه هو حوي أنا عن درين وقت بعد الجليمين نفط هذا كنترولي أنت هو معناه وانا قدري توفيق لي وكان بقى إلهي من قوافتش معناه هو سدوي وك إلهي واحد ويدي ستا إلهي قوافتش الباب كان إلهي فرطي قفك إلى متكاه إلى وقتكاه إلى مسكحه waxaasoo adkaara ku xifdisan yahay qur-aanka ku xifdisan yahay ku baranayo ilaah waafajinta aad siisay kale anigana igu waafaji albaab weyn ilaah anigana igu fur saasoo kale ku ducayso ilaah waxaan weydiisanaa subxaana dembigana inuu dhaafo dembiga waalidkeena inuu dhaafo dembiga muslimiinta inuu dhaafo
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. دعاء دخول المسجد. waxaanu soo gaadhnay ducada lagu galo masaajidka ama lagu soo galo. wuxuu yidhi sheekhu yabda'u birijlihi lyumnaa, qofku masaajidka markuu gelayo lugta midig buu ku bilaabayaa oo kusoo gelaya. wayaquulu wuxuu odhanayaa acuudu billaahi alcadiim, ilaahay baan magan gelayaa, allaha weyn baan magan gelayaa. wa biwajhihi alkariim, wejigiisa karaamada iyo sharafteeda baan magan gelayaa. wa sulطaanihi alqadiim, madaxtinimadiisa iyo awooddiisa horreysay ayaan magan gelayaa. waxaan ka magan gelayaa min ashayطaani alrajiim, shayطaanka la fogeeyey ayaan ka magan gelayaa. bismi illaah, magaca alle ayaan ku bilaabayaa gelitaanka masjidka. wasalaatu, ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo calaa rasuuli illaah, nebiga ama ilaahay rasuulkiisa korkiisa ha ahaato. allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dhaaf dunuubii, dunuubtayda ii dhaaf, oo waftax lii ii fur abwaaba raxmatika, naxariistaada albaabadooda ilaahu ii fur. adkaartaasaa masaajidka uu ku gelaya. masaajiddu waa guryaha ilaahay, meel kale oo allah subxaanahu casa wajalla dhulka ka samaystay oo uu isu tiiriyey isagu oo aan masaajidda ahayna ma jirto. wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada. ilahay baa masaajidda iska leh. guriga ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu qofku soo gelayo waxaa la rabaa inuu ku soo galo qalbi doonaya inuu ilaahay waxa uu ugu talagalay oo masaajiddan ugu talagalay in lagu camiro oo lagu dhex joogo inuu ku soo galo. waa cibaado, waa qur-aan akhris, waa dikri iyo waxa la midka ah. waxaad ka dheehanaysaa markaa adkaarta lagu soo gelayo. qofku wuxuu ka soo gelayaa meel badanaaba qafladdu ku badan tahay oo suuqa ah. wuxuu u soo gelayaa meel qafladdu ku yar tahay oo masjidka ah. wuxuu ka soo gelayaa dunuub, wuxuu u soo gelayaa dembi dhaaf. wuxuu ka soo xaroonayaa xidhiirhka bini aadamka ula lahaa, wuxuu u soo gelayaa ilaahay xidhiirhkii uu u lahaa. qofku markaa wuxuu usii diyaargaroobayaa masaajidka markuu gelayo oo qalbigiisa usoo xaadirinaya iyo niyadiisa inuu allah subxaanahu casa wajalla marti u yahay intaa, lagana rabo qof marti ah oo weliba allah subxaanahu wa tacaala marti u ah, edabtii laga rabay inuu la yimaado. markaa midigtu ku bilaabaya waa edabta koowaad weeye. meel walbo wacan marka la gelayo oo meel laga fiican yahay laga soo gelayo, midigtaa la horreysiiyaa. marka laga baxayana bidixdaa la horreysiiyaa. wuxuu odhanayaa acuudu billaahi alcadiim wa biwajhihi alkariim wa sulطaanihi alqadiim min ashayطaani alrajiim. shaydaanku ilaahay ka magan gelaya, weliba ilaahay iyo tilmaamihiisa wanaagsane wacan oo dhan buu ilaahay kaga magan gelaya. oo laguma kaaftoomin min acuudu billaahi min ashayطaani alrajiim oo keli ah, ee waxaa lagu daray dhowr tilmaamood oo ilaahay leeyahay oo iyada laftarkeeda la magan galay. shaydaankii lugooyada midhan ahaa oo qofka laga yaabo inuu aada ugu mashquulinayay suuqa iyo hawlihiisa, hadduu masaajidkiina kasoo dabagalo oo masaajiddu way galaa, shayaaiintu ama jimanku waa galaa masaajidda. hadduu masaajidkiina kaasoo dabagalo oo cibaadadii kaa mashquuliyo oo rabbi kaa jeediyo, waa dhib weeye. marka magangalka ilaahay aad ka magangelayso shaydaankii kaa reebaysa. masaajidka markaad soo gasho adiga iyo naftaada markaa isu hadhaya. hadday naftaadu khaali tahay oo wixii ay shaydaan ka baratay ay ka baran tahay, markaasoo kale cibaadadaadii waa wacnaanaysaa, ilaahina subxaanahu watacaala si fiican baad u caabudaysaa. laakiin haddii nafta aad ka adkaan kari weydo, nafta laftarkeedu marmarka qaarkood shayaaiintu
shayaadiinta keli ahi wax ma lumiyaan ee nafta laftarkeedu waxbay lumisaa waxaa jira naf la yidhaahdo alammaaratu bisuu xumaha farta wax kale ma samayso xumo unbay ku faraysaa marka haddaad naftaa ka adkaan kari weydo iyadoo shaydaankii lagaa reebay markaasi waxaa tahay qof aad u tamar daran aad u xanuunsanaya inaad isdaaweysaa markaa u baahanta cibaadada isku daaweyso toobadkeen isku daaweyso dikriga isku daaweyso qalbigaaga soo jeediso isku daaweyso oohinta isku daaweyso intaasaad u baahanta shaydaanka markaa ilaahay ka magangelisa kadib bisinkaad qabsanaysaa ilaahay magaciisaad barakaysanaysaa masaajidka aad gelayso nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waad ku salinaysaa kadibna waxaad leedahay allahuma kfir lii dunuubii waftax lii abwaaba raxmatik ilaahu dunuubteeda dhaaf masaajidka intaadan soo gelin ka hor dunuub badan baa laga yaaba inay kaa dhacday dunuubtii hore ee waaweynay toobadkeen rasmiga u baahan yihiin dunuubtii kale ee yaryaraydna ilaahu iga dhaaf waddada intaan soo socday wixii dembi oo iga soo dhacay iyo wixii dembi oo aan leeyahay yarba iyo mid weynba laakiin dunuubta waaweyn mar walba toobadkeen rasmiga u baahan yihiin qodobkaasi waa inuu kugu jiro waftax lii abwaaba raxmatik albaabada naxariistaada ilaahu ii fur meeshan munaasabadeedu waxa weeye qofku wuxuu gelayaa albaab la galo oo adduunyada ku yaalana waxaa ugu naxariis badan albaabka masaajidka albaabkiisa albaabka guriga iyo albaabka meheradda iyo albaabka masjidka iyo albaabka xafiiska waxoo dhan ba isku soo dardar oo albaabka masaajidka wax ka naxariis badani ma jiro raxmaddii ilaahay baad kusii socotaa dembi dhaafkii ilaahay baad kusii socotaa la xiriirkii ilaahay baad kusii socotaa ilaahay markaa naxariistiisii guud albaabada ay leedahay inuu allah kuu furo ayaad weydiisanaysaa markaad gelayso marka lugta midig buu ku bilaabaya wayaquul wuxuu odhanayaa acuudu billaahi alcadiim allah weyn baan magan galay wabiwajhihi alkariim wejigiisa karaamada iyo sharafta leh baan magan galay wa sulطaanihi alqadiim awooddiisa iyo maamulkiisa horreeyey baan magan galay min ashayطaan alrajiim ilahay waxaan ka magan gelayaa shayطaanka la fogeeyey bismi illah magaca allah baan ku bilaabayaa gelitaanka والصلاة والسلام على رسول الله أمان إيه نبتقلية بالنبي محمد كركيسة هاته صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي إله دنبي اللهم اغفر لي إله إلاف ذنوب تيدا وافتح لي وحادي فرتا أبواب رحمتك أحريست هذا الباب بدودا إله يفر ساسو كدو عيسان طيب ساشد كمركو صوغ لمركا انت وجوده هذا كتشرو أذكار باكرته مالها قاركو سمناه صلاة مركو قليو salaada marka uu ka baxayo waa ka warrami doonaa iyada oo soo socdaan laakiin waxaa ku munaasib in lagu xijiyo markaad fahantay masaajidka waxa lagu soo galo maxaa lagaga baxaa masaajidka waa ducaa khuruuj min almasjid ducada masaajidka lagaga baxo طيب يبدا wuxuu ku bilaabaya birijlihi al-yusra lugtiisa bidix buu bixitaanka ku bilaabaya ويقول wuxuu oranayaa bismillah والصلاة والسلام على رسول الله مقع إلهي بان كبلاوي أماني نبتقلي نبي محمد كل كيسها أعطى رسولك إلهي اللهم اغفر لي ذنوبتي إذا إله إلاف اللهم إني أسألك من فضلك إله ديرات كان كوي دي سنية ديرات سينتاد اللهم عصمني من الشيطان الرجيم إله وحادق إلى لسا الشيطان كالفقيي إيو وسواسكي سنية إلى طيب نكتب بديح وحوق بلابيا ونجي نري meel wanaagsan marka laga baxayo oo khayr iyo qudsiyo leh wuxuu ku bilaabayaa bixitaanka qofka lugta midigna wuu dambaysiinaya macnaha ku jira waxa weeye lugta midigi meesha sharafta leh baa loo qaadaa oo loo hor qaadaa meeshii sharafta lahaydna haddaad ka baxaysaa haddaad lugta midig hor qaado macnaheedu waxay ka dhignaan karaysaa meeshaad u socotaa inay ka sharaf badan tahay meeshaad ka baxayso masaajidkuna wuu ka sharaf badan yahay meel walba oo kale oo aad u baxayso wuu ka sharaf badan yahay sidaasaad markaa lugta bidix u horreysiinaysaa waxaa kaloo macnihiisu yahay qofku inuu ku soo dhacdo ama xaaladiisa inay u sawiranto qof rabo masaajidka inaanu ka bixin lugta midigaasa la ahaan qofku dhaqaaqa wuu hor qaadaa markuu midigtii dambaysiiyo qofkii qof dib isu hayo oo kale oo raba inuusan masaajidka ka bixin oo uu sii joogo sii cibaadaysto xaaladaasoo kale sawirkaasoo kale qofku inuu yeesho baa iyaduna meesha macno ku jirta ayib lugta markuu qaado markaa uu lugta bannaanka dhigto dabcan kabaha lugta midig baa lagu horreysiiyaa oo la gashadaa bixitaanka masaajidkana lugta bidix ayaa la horreysiiyaa sidee markaa isu waafajinaysaa
sidii aad adigu awoodi karayso kabaha marka aad dhigato dadka qaarkood kabta si ay u gashadaan waxaa isku hor imanaya kabta inuu gashado oo midigta u baahan iyo bidixdii oo masaajidka bixitaankiisu u baahan yahay markaasuu waxaa laga yaabaa inuu kabta horreysiiyo oo kabta ku gashado midigta weliba kabaha sandalka ah oo kale qofku markuu xidhanayo kadibna midigtii uu horreysiiyo hor saaro bidixdiina uu ku xejiyo wax badan ma aha intan yaro boodhka ah oo laga yaabo inay cagtooda ku dhacayso waxse usii weyn ma aha walidaalika jamciyo bidixdana horreysii bixitaanka kabta inaad gashatana waxaad horreysiisaa midigta waxaad samayn karaysaa haddaad boodhka masaajidka ka baqayso inaad lugta bidix kabta dul saarto nacam kadibna lugtii midig kabteedii xidhato kadibna kabtii bidix aad sidaa ku xidhato taana waa samayn karaysaa ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مقع إلهي كبحيا نبينا وكسلنا يا بركو بحيا اللهم اغفر لي ذنوبي ذنوبتا إلهي الذنب الله فك ويدي سنيا أما وحو قادن كسميها أهاتو أما مسجدك إنتو كتشري ذنبي وقل عيبها أهاتو وحليها اللهم إني أسألك من فضلك إله وحنك ويدي سنيا فضلك هذا فضلك هو ديرات سين وحي إله أنشقيستي وصلاة أها والأذكار أها وقرآن أخرس أها واعتكاف أها والدعاء أها وحي أن مساجدك كشا قيستي إن لأك إله هيواء والمرين إله غير هذا السين إيبري تسوية معنى اللهم إني أسألك من فضلك إله غيراتك ينكوي دي سنية اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم إله يغير هذا الشيطان كاللفوي ماشي هذا بحيسا وحويا ماشي الشيطان كشا قدي سبعي جوكتي سوق بعض بحيسا سوق وماشا النبي صلى الله عليه وسلم سيده uu sheegay adkaartiisuna way inoo iman doontaa lagu galo waa meel ilaahay boosaska ilaahay uu abuuray meelaha ugu sharka badan ee ilaahay uu neceb yahay weey sababtuna waxa weeye waa meelaha ugu lumitaanka badan oo qofku uu kaga lumo diintiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan tayib adkaartaas markaa kaga baxaya adkaaru al-adani adaanka adkaartiisa marka la adimayo muxuu qofka maqlaya muadinku uu ku ducaysanaya ama muxuu oranaya yaqulu wuxuu oranaya qofka maqlaya mithla ma yaqulu almuadhdhin muadhinku waxa uu leeyahay oo kale ayuu oranaya illa fi hayy ala as-salati hayy ala as-salah wa salata u kaalaya markuu leeyahay wa hayy ala al-falah hayy ala al-falah liibanta u kaalaya markuu leeyahay iyada siduu oranayo oo kale oran maayo وحي على الصلاة كذب أوران مايو أم حي على الفلاح كذب أوران مايو يوحو أورانيا لا حول ولا قوة إلا بالله حالات آن صلاة كوج أتشيبنو إيا الليبان تاسي إيا أود أن كو أتشيبنو من مريهن هدان إلهي نصيدين سيدا صورانيا أبو سعيد الخضري بنبي كبرين يا حديث صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن مركا المقشان يرمض اللي يريو waxa muadinku leeyahay oo kale dhaxa marka erayadaas aad oranaysa erayada marka uu muadinku ku adimo saddex nooc weeye qayb waxa uu soo aroortay sidoo kale in la dhaho qaybna waxa uu soo aroortay adkaar gaar ah oo la yiraahdo qaybna waxa uu ma soo aroorin adinka caadiga ah Allahu akbar laga bilaabo ilaa marka ugu dambaysa توحيدك كل ما يو كلمة توحيدك ومؤذنك كل ما يو سيدا مؤذنك ليه أو كلا يوقفك أرانيا لا حول ولا قوة إلا بالله نوح أرانيا مركا وحي على الصلاة حي على الفلاح أوليا وحجر مركا مؤذنك مركا وتثويبك لي معدو وأذانك الصبح وقدر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم إذا وحقاره لي هذا وما نسوء أروني ولذلك بعلماء waxay isku qabteen muxuu oranaya qofku miyuu aamusaya mise sida uu muadinku leeyahay buu ka daba oranaya wa as-salatu khayrun min an-nawm isaguna oranaya mise wuxuu oranaya sadaqta wa barilta sadaqta run baad sheegtay inay salaadu khayr badan tahay oo ka wanaagsan tahay hurdada run baad ku sheegtay taas oranaya taas marka wuxuu soo arooray ma jiraan ki aad sameeysaana إذن كإلهي وحنا بمرح وخير وي طيب وحكى الله مدأه وينوح قارا يسنسو أرورين أقيمتانك لبدا كلمدود وصلاة إن لا أقيمي ولا أوغي يقتو السنية قد قامت الصلاة
qad qaamat الصلاة salaadii waa la oogay sidaa marka uu muadinku leeyahay oo salaada u aqiimayo iyana culimada qaarkood waxay yidhahdeen wuu aamusaya qaarna waxay yidhaahdeen wuu ka daba odhanaya qad qaamat الصلاة culimada qaarna waxay yidhahdeen maye wuxuu odhanayaa aqaamaha allahu waadaamaha wajacalanii min saalixi ahliha ilaahay ha oogo ha joogteeyo dadka wanaagsan oo salaada tukadana ilaahay hayga mid dhigo kii uu sameeyana insha allahu waa khayr oo wax dhiba mala adinka aad ajiibayso waa adinka muadinka uu adimayo basharka ah xilligeediina jooga oo salaada loo adimayo haddii markaa uu caruurta guriga ka adinto ama mobile aad haysato saacadda ama gambaleelkiisu uu adaanka ku soo dhaco ajiibitaankiisa lagaama rabo waajibna maaha sunnana maaha haddaad ajiibtana wax dhiba ma laha laakiin waajibka ama sunnaha uu kani noqon lahaa ma aha muadinka masaajidka aad maqlayso aad ajiibaysaa haddaad muadin walba la ajiibi karayso waa sida fiican haddii kalena masjidka markaa kuugu dhow ama aad joogto baad adaankiisa la ajiibaysaa ama kaad ugu hormaqasho sidii adigu aad u kala horraysiisan karayso baad u ajiibaysaa adaankiisa waajibna maaha adaanka in la ajiibo sunna weeye laakiin waa sunno adag oo culimada qaarkood ay yidhahdeen waa waajib wey sunno adag oo culimada qaarkood yidhahdeen waa waajib haddii laga tago dembi buu qofku ka qaadayo si markaa aan war dembiba kuu soo gelinin waa in iska ajiib oo muadinka intaad awoodo ajiib ayib adaanka marka waa la ajiibaya waxaa kaloo la ajiibaya iqaamada dadku way yaqaanaan muadinka in la ajiibo laakiin marka uu aqiimayo muadinku in laga daba yidhaahdo waxa uu leeyahay lama yaqaano qofku marka uu aqiimayo muadinka ahi iyana waa laga daba odhanaya inta uu leeyahay baa laga daba odhanaya oo siduu u dedejinaya baa loola dedejinaya qodobkaasi dadku laa ilaha illa allah haduu ba yaqaanaana markuu dhammeeyo laa ilaha illa allah iyo xoogay adkaan ah baa lasii raacaya ayib laakiin inta kale in la ajiiba lama yaqaano waa la ajiibaya adaankana waa la ajiibaa aqinkana waa la ajiibaa sidaa loola socdo ayib wuxuu odhanayaa wa ana ashhadu an laa ilaha illa allah marka uu adaanka dhammeeyo ayuu wuxuu odhanayaa wa ana ashhadu an laa ilaha illa allah anna waxaan qarayaa alle xaq lagu caabudo inaanu jirinin alla maahaane waxdahu keligii laa shariika lah mid lala wadaajiyo cibaadada inaanu jirin baan qaraya wa anna muxamadan cabduhu warasuuluh muxamed addoonka ilaahay iyo rasuulkiisaba inuu yahay baan qaraya radiitu billaahi rabbaa radiitu waxaan raalli ku noqday billaahi alle rabban inuu rabbi ii ahaado baan raalli ugu noqday wa bimuxamedin muxamedna waxaan raalli ugu noqday rasuulan inuu rasuul ii noqdo ergeygii lasoo diray oo nebigayga inuu noqdo baan raalli uga noqday وبالإسلام إسلام كان دينا دين بان رالي uga noqday inay diinteyda ahaato yaqulu dhalika inta wuxuu oranaya عقب تشهد المؤذن مؤذنku marka uu shahaadada qabsado marka uu shahaado oo ereyada shahaadada uu akhriyo marka ama ereyada shahaadada dhexe marka uu akhriyo iyo tawxiidka ama ereyga shahaadada ugu dambeeya marka uu ku dhawaaqo ayuu sidan oo kale oranaya waxana fiican inuu dambaysiisto oo xagga dhexe de wax uu yiraahdo buu leeyahay marka xagga dambe inuu dambaysiisto ayaa fiican marka kelimatu tawxiid buu qaraya walibana kelimatu tawxiid buu si dhabaynaya tahqiiq buu sameynaya markaasuu wixii uu ku qiray buu raalli ahaan sharaacinaya ashhadu an laa ilaaha illa allah waxay ku tusinaysaa inaad raalli ka tahay inuu rabbiga rabbi yahay inuu rabbiga yahay oo macbuudka caabudaysa inuu isagu yahay haddana waxaad ku sii adkaynaysaa radiitu billaahi rabba hore waxaad u soo qartay ashhadu anna muxamadan rasuulullah rasuul inuu yahay waad soo qartay haddana waxaad ku sii adkaynaysaa wa anna muxamadan ama wa bimuxamadin rasuula waad ku adkaynaysaa islaamnimadu waa intaa un weeyaan ilaahay oo la qiro iyo nebi maxamed oo la qiro haddana waxaad ku adkaynaysaa wa bilislaami diina ayib waa munaasib jiddan wey intaa marka uu yidhaahdo ayuu wuxuu leeyahay yusalli cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku salinayaa bacda faraagihi marka uu ka faaruqo oo ka dhammaado min ijaabati lmuadini muadinka ajiibitaankiisa markuu ka dhammaado buu nebiga sala allahu calayhi wasalam ku salinaya naam nebiga in lagu saliyo meel wax walba wanaagoo la dhameeyana waa sunno weeye qofku markuu wax shay wanaaga dhameeyo nebiga inuu ku saliyo sunno weeye ayib
hadda masaajidka soo gelitaankiisa nabiga salligiisa lagu soo galaa marka laga baxayo nabiga salligiisa lagu baxaa inaga hadda soo marnay adaanka marka la dhameeyo adkaarta lagu dhameeyo waxaa ka mid ah nabiga salligiisa salaada taxiyaadkeeda ama tashahudkeeda wiinoo iman doona nabiga salligiisa lagu dhameeya وهكذا marka nabiga salligiisu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi waa sunnayaasha guud ee soo noqnoqda xilliyada uu qofku wanaaga dhameeyo ama khayrka shayga khayrkaa dhameeyo ama xataa uu rabo inuu galo ducada markaad gelayso ilaahay baad ammaanaysaa ilaahay baad u mahad celinaysaa nebi maxamed baad ku salinaysaa salawaatu rabbi wasalaam adaabta ducaday ka mid tahay adoo nebiga ku salin inaadan ducadaada gelinin wixii kale oo khayr oo wanaagahna intaa unbaa looga qiyaas qaadanaya oo ay la mid yihiin ayib wuxuu odhanayaa allahuma rabba hadihi dacwati taama والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة اللهم يا الله إلهي رب هذه الدعوة التامة يرمضا لما يسكتران أي يرمضا التوحيد كأه الله له والصلاة القائمة صلاة الأوغي أي وقت يدي سوق علي الله له آت محمد صلوات ربي وسلامه عليه واحد سيسا الوسيلة درجة الشنة الوسيلة اللي يلاحظه والفضيلة فضل الإراد إله سيرسي وبعثوا وحد كسو صارتا مقاما بوس محمودا لما هديو الذي بوس كاسو وعدته أدب لنقادي إنك أدب رب يوم لا تخلف الميعاد بلنك يبوها ما بينسي كما بحدي إله انتانا بمحمد سي ساسو رميا الدعوة التامة وتوحيدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ودعوة iyo yeermo waxa la isugu yeero waxa ugu dhamayska tiran weey qofku inuu tawxiid qabsado gaalka inaad ugu yeedho inuu tawxiidka qabsado muslim inaad ugu yeedho inuu tawxiidka qabsado waxa ugu fiican ee la isugu yeero weey saas marka dacwad dhamaystiran ku tahay wa salaati alqaa'ima salaada marka la oogayo loo aqiimayo aati muhammadan alwasiila wasiiladu waa maxay wasiiladu waxa jira jannooyinku waa darajooyin kala sarreeya janno ahaan bay u kala sarreeyaan oo jannada firdaws la yiraahdo waa ugu sarreysa firdaws laftarkiisu ama laftarkeedu way kala sarreysaa oo waxay u kala sarreysaa sida xidigahaas iyo dhulkan aynu joognaa u kala sarreeyaan bimacna sida xidigahaas ay kuugu muuqdaan fog oo kale ayaa firdaws dhexdeedana laysu daawanaya ee laysu egeegaya marka jannatul firdaws waxay ku taallaa الله سبحانه عز وجل عرش بيسه هوستي سيكوت الله ولبا عرش ماشا أغو دحيسة بيكوت الله ماشا مركا أغسي دحيسة أغسي الرئيسة أي وحا لير هذا الوسيلة فردوس دحلي هذا ماشا أغسي الرئيسة أغنى دحيسة أي وحا لير هذا الوسيلة وأنا بوس نبي محمد صلى الله عليه وسلم كلي إليه إذا اللي دقي سامة جرتو سيقا أم باكلي يدقل سيقا إيو إلهي وحما ماشا قصيو أغنى معايو حاسس يخدم بقرطوية النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمالك القيامة وي بوسكا مركا يوسو دعية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ميرو كلاب خيلنا مركا النبي دعاء وحو إن يجري يوسو دعية وي ماشا يوسو دعية وهنا نقول دعية مركا حل والبا وصلاة أقيم كذا يأدن كذا بقى إنه مقلة طيب آتي مركا وحسيسا محمدا الوسيلة بوسكا درجة يتشنع وسيلة اللي إله سي والفضيلة فضل الإرادة إله سي أنت ونجارسيي الدين تني دعوة ونوكيني أنت وكم تيسني هي إن إرادة إله كسي وبعثه واحد كسو صارتا مقاما بوس محمودا لما هذه الذي كاسو وعدته أذوبي بوهذي إنك لا تخلف الميعاد يبوها إله أذو كما بحري بوس كاسنا محوها ما نك قيامة مركا لا يسوق تاجو دتك بنك قيامة الله صو صاره وحا مدو أي كتشريان دتكو ولا هو يورع إلهي سبحانه وتعالى أصبح مايو ملائكتي إيمان مايسو دتكي وحي كتشريان ورع مرحقا يوكعيان مرحقا يوكعيان وإزداو مريان بوق فربضان باجري مدير نوالا تشوغيا حالدنا وحالدا دتكو واقاويه قرحدينا وادوده mididkii waa dhamaaday qaab waxa la iskaga jiraa yar dadku waa dhibaataysan markaas dadku waxay sameynayaan ambiyada ilaahay inay ku wareegaan si ay ugu ergeeyaan aadam bay u tagayaan ibraahim bay u tagayaan muuse u tagayaan ciise u tagayaan wuxuu dhanba mid walbaaba waxay ula tagayaan erga ah noo ergee
ilaahay inuu na kala xukmiyo oo meesha naga dhaqaajiyo ilaahay nooga ergey markaasuu mid walbaaba wuxuu leeyahay dembi baan galay noocaasa markaan adduunyada joogay idinma ergeyn karayo ee hebel u taga marka dambe nebi maxamed bay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi iman nebiga markaa wuxuu leeyahay anaa lahaa markii horeba cilaad ku wareegaysay anaa iska leh ergadaas u tegaya markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam carshiga hoostiisuu ku sujuudaya sujuud dheer buu nebigu sala allahu calayhi wasalam qabsanaya markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala la hadlaya sujuudda markuu dheereeyo markaasuu wuxuu leeyahay maxamedow kac ishfac tushafac u ergee waa laga erga aqbalaya markaasuu wuxuu leeyahay ilaahu ummadda xukunkoodii ilah u soo dedeji markaasaa ilaahay wuxuu odhanayaa ha markaasaa la bilaabaya in dadkii la kala saaro allah baa imanaya wajaa rabbuka waalmalaku safan safa malaa'igtii oo safan baa imanaysa safaf dhaadheer oo cajiib ah ku jirta allah uu imanaya subxaana muxuu imanaya dadka in la kala saaro booska markaa ah khalqigii aadan laga soo bilaabo calayhi salaam aabbaheen ilaa kii ugu dambeeyey inay ummadda intaa leeg ergeyn kari weydo oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ergeeyo meeshaasi in ergadiisa isaga u ergeeyo lana aqbalo waa maqaam maxmuud ah waa meel aad loo mahadiyo xallaal cuqad qofku adduunyada markuu joogo waxaa lagu ammaanaa hebel waa ergadiisu waa cajiib wax dadka oo dhan ay qaban kari waayeen ama ka ergeyn kari waayeen ama furdaamin kari waayeen buu isagu furdaamiyey ka warran meel khalqiga ilaahay il yartu isqabatay oo khalqigiiba taagan yahay dhammaantood ka ergadiisu keligii la aqbalayo waa qofka ugu sharafta iyo karaamada iyo mahadinta iyo aqbalka ilaahay iyo u dhowaanshihiisa qofka ugu badan soo ma nebi maxamed wey waa maqaamka markaa ummaduhu mahadinayso oo nebi maxamed loo wada mahad celinayo marka ergadiisa la aqbalo ee u ergeeyo ummadda oo dhan khalqiga oo dhan ay u mahad celinayaan maqaamkaasaa markaa ilaahay subxaanahu watacaala laleeyahay waa aynu ugu ducaynaynaa ilaahu maqaamkaa kusoo saar maalinka qiyaame nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wabcathu waxaad kusoo saartaa maqaama boos maxmuudan la mahadiyo alladii wacadta inaka laa tukhlifu lmiicaad ayib wuxuu yidhi sheekhu yadcuu wuxuu baryayaa qofku linafsihi ama u ducaynayaa linafsihi naftiisa bayna aladaani waliqaama adinka iyo aqinka inta udhaxaysa faina ducaaa ducadu xiinaidin markaa laa yuraddu lama celiyo waa xilliyada ducada la ajiibo bay ka mid tahay labada adaan inta udhaxaysa adinka iyo aqinka inta udhaxaysa xilliyada ducada la ajiibay ku jiraan marka qofku waa ducaysanaya wixii uu awoodo arrin aakharo iyo arrin adduunyo ayuu ku ducaysanaya ducadana sunnaheedu waxa weeye qofku ducada aakharana inuu laba qaybood ka dhigo ducada adduunyana inuu hal qayb ka dhigo ducada inaad saddexayso saddex meelood oo laba meelood inaad aakhiro ku ducaysato hal meelna inaad adduunyo ku ducaysato labada meelood aad aakhiro ku ducaysanayso meel ka mida inaad janno iyo ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa ku ducaysato inuu ku siiyo meel ka mid ahna inaad naar inaad ilaahay ka magan gasho iyo waxa dhib aakhiro yaalla aad ka magan gasho ayaa aad ku ducaysanaysaa marka ducadu waa saddex dhinac meel waa janno iyo wanaag iyo khayr aakhiro yaalla meelna waa magangalka naarta iyo dhibka aakhiro yaalla meesha saddexaadna waa maxay waa adduunyada weyn marka maaha inaad cagsiso ducada aadaabteedu sidaa maaha qur-aankana saasaa ku qoran rabbana aatina waladiina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وآخر وقنا عذاب النار وآخر marka saddex duco dadka la amaanay leeyihiin waxay oranayaan rabbana aatina fi dunya hasana ducadeedu saddex bay ka kooban tahay laba meelood oo kamid ah waa aakhira ku ducaysanayaan wa fil aakhirati hasana wa qina cadaab an-nar labadaasiba waa aakhiro inta horena waa maxay waa adduunyo sida awgeeda waxa sameyn inaad sidaas oo kale adiguna ducadaada u qaybsato ilaahay waxaan weydiisanaynaa dambigeena inuu dhaafo dambiga waalidkeena inuu dhaafo ka muslimiinta dambigooda inuu dhaafo هذه قرابة وحين نجح المسلمين المسلمين بينو عافية المسلمين تأهو لبن نبكي إنه كساره مدى المسلمين تامدي مدى وسعريه عبادة قلب جين إلهي وكن نوريه شاهد كذا إلهي سبحانه وتعالى ونسيه تدعو ما هو مسلمين أنت نور الله نجلبه سلامك إنه قلنا له سلامك إنه قديله فتنوي كميري إلهي نجبت باديه إلهي وحكى ويدي سنة تتكلم فتنة إن أنا نجمد نجين مدى المسلمين تانا فتن كإنه كبت باديه فتن كمضلات كأنا إلهي نجبت قليه يهود يقال يوحي وطانا إلهي وشبيه لكم مسلمين تانا إلهي وحريه دولها مسلمين تانا أودوا إلهي أوسيه ولما يستره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك